godka lagu magacaabo ceelka cadaabta iyo shaydaanka meel ka fog dhulka lama deegaanka ee bariga waddanka Yemen waxaa ku yaala god la rumaysan yahay inuu yahay mid meesha ku yaalay malaayiin sano ka hor godkan oo lagu magacaabo ceelka barhuud dadyowga agaarkiisa degan waxay rumaysan yihiin in wax kasta u soo dhawaada godkani aadka u dheer uu jiidanayo ama uu dafayo iyadoo aanay jirin cid ka baxsan karta taas ayaana keentay in lagu magacaabo godka cadaabta ama godka jinka iyo shayaadiinta godkani wuxuu aad ugu caan baxay mala awaalka sheekooyinka ay ka sameeyeen dadweynaha sida inuu jin degan yahay godkan kaas oo diidaya cid kasta u soo dhawaata ceelkan barhuud wuxuu ku yaalaa lama deegaanka Yemen oo u dhow sohodinta uu leeyahay dalka Carbeed ee Cumaan waxa uu ku yaalaa gobolka Almahra waxaana balliciisu yahay 100 feet ama 30 mitir waxaana loo malaynayaa inuu hoos u qodan yahay ilaa 330 feet oo u dhiganta 100 mitir laakiin waxaa jira dadyow ku doodaya inuu ka dheer yahay 250 mitir mana jiro qof weligiis gaaray gunta hoose ee ceelka barhuud shaqaale ka socda wakaaladda wararka ee AFP ayaa dulmaray godka iyagoo isticmaalaya kaamirada drone-iska waxayna qabteen muuqaal cajiib ah oo dadka ka qarsoonaa si kastaba ha noqotee xitaa iyadoo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ay si toos ah ugu dul heehaabayaan ceelka haddana waxaa adkayd in si toos ah loo arko gunta hoose ee godka dadka ceelka u dhow waxay inta badan ka hadlaan in ceelku aad u urayo marka loo soo dhawaado wax badan lagama arki karo ceelka dhinacyadiisa maadaama iftiinka qorraxdu uusan aad u gaarin gudaha sida laga soo xigtay AFP sawir qaadayaasha ayaa sheegaya inay adag tahay in sawir laga qaado gudaha ceelka noocyada kala duwan ee shimbiraha ayaa inta badan la arkaa iyagoo ka duulaya kana baxaya ceelkan aadka u mugdiga badan cimilada qaybtan waddanka Yemen caadi ahaan waa mid aad u kulul oo ah mid qaleyl ah inta lagu jiro xagaaga inkastoo dhici karto in meelaha u dhow ee buraleyda ah uu mararka qaar roob ka da'o laakiin guud ahaan gobolku ma helo roob badan oo heerkiisu sareeyo sheekooyinka jinka ay isla dhex marayaan dadka deegaanka ayaa aad u badan iyadoo la sheegay in qarniyo badan ceelkan degan yihiin jinka dad badan oo ka agdhow xitaa ma jecla inay ka hadlaan arrimaha godka iska badaa inay boqdaan iyagoo ka baqaya jinka la sheegay inuu meesha degan yahay